dhammaantiin saaxiib la aad baa idin salaamay halkan waxaan rabaa insha Allah maanta inaan ku sharaxo koorsada aan soo saaray cryptocurrency oo lagu barayo luqadda af Soomaaliga baa waxaan rabaa koorsan waxa ku saabsan tahay waxyaalaha lagu baranayo iyo shuruudaha adiga laga rabo ardayga intaada gudaha u gelin baarin aan kugu sharxo marka ugu horeysa saaxiib la akademiyadeena ardayga hamar baa lacagta ka qaadnaa waa lifetime access weeyo ardayga markasta lacag joogta kama qaadno qaabkaas baa wax bay akademiga u shaqeysaa website-ka galabasha macashada ka bixi doonaan si standard muuqaalo duuban oo practical iyo theory la weeye saaxiib saddex sano u dambeeyay waxaan ka soo helay suuqaan waxa way cryptocurrency YouTube-ka iyo Facebook-ka baan soo geliyay muuqaalka ugu fiis badan looga hadlay cryptocurrency dabcan video-ga u jeedaan weeye 2021 baan duubay ilaa hadda dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay way jirtaa oo hadda maalgashtay sidoo kale saaxiib waxaan soo qornaa blogging suuqan cryptocurrency artikelada ugu badan oo laga soo qoray af Soomaali ahaan galabashii bloggiisa baa ka helaysaa anagu intaas value bixinay wali dhalinyarada Soomaali waxaan naga codsaday inaan ka sameeyno course gaar ahaan qaybta waxa way investment-ga koorsadan cryptocurrency waa qaybta investment-ga ma ahan saaxiib qaybta trading ma saaxiib hadii isla bilaawno requirement-ga ardayga laga rabo marka hore waxa way inuu internet access haysto dabcan hadda muuqaalkayga daawanaysid waxaad haysataa waxa way internet وشروط كواد أرضي لغيره إنس إزدوان قلنا كور ساحب الشروط اللي بعد وحوي أرضي يقولون تليفون أما لابتوب قاب كورسان ساحب الأودي عرني قاب موبايل وكتشلا قاب لابتوب وكتشلا واللي بقى قيب دم وحوي كورسان مركي أرضي وكريبت كارنس وقدرنيو إكسشينجدو وسكدوان قليو إكسشينجدو كقدرني كريبت كارنس كل دوين يصلوا كلا ساحب يقول لديدا شو توصل محا وقبل حين مقالة فيديو أو براتيكالا واللي بقى أنا تليفون استعمالي كريبت قدرني إسكيبيني في اللايف ما دام دتك مصطلي استعمالان تليفون صاحب القضب كان saddexaad wuxuu ka hadlay wax experience ya qofka loogama baahna ardayga min bilow ilaa dhamaad waxa way cryptocurrency af Soomaali baan ugu sharxi doonaa oo meesha ugu soo hoosan ka bilaaw doonaa from scratch meesha dhexe ardayga gaarsiin doona waxa saaxiib marka ardayga muxuu ku baranayaa koorsiga horta kow ardayga waxaan faham guud ka siin doonaa saaxiib waa maxay waxa way cryptocurrency iyo soo kala saaxiib taariikhda ama history waxa way cryptocurrency meesha ka timid iyo meesha la filayo hada dunida inay ka tagto sidoo kale saaxiib waxaan koorsada muuqaalo badan ku sharaxaynaa waxa loo yaqaan blockchain oo ah technology-ga oo ku shaqeeya suuqan loo yaqaan cryptocurrency baan si af Soomaaliyeedsan waliba maqaalo iyo articles isugu jiraan baa koorsada ka dhaxal doonta oo si guud aad u fahmi doontaa waxa loo yaqaan blockchain sidoo kale saaxiib waxaan koorsan ku baran doontaa sida loo iibsado iyo sida la iskaga iibiyo cryptocurrency adoo isticmaalaya exchange-da ugu caansan ama waxa weeye waladida ugu caansan si toos ah live ah baan casharada ugu baran doontaa saaxiib sidoo kale waxaan ku baran doontaa termiska ama terminology ugu caansan suuqan la isticmaalo dabcan hadii aad baranayso caafimaad hadii aad baranayso cilmiga dhaqaalaha economics iyo wax kasta adduunka ku saabsan wuxuu leeyahay luqad u gaar ah marka saaxiib waxaan ku baran doontaa terminology-ga ama af suuqeedka suuqan la isticmaalo sida mataqaana bearish hadii noqon waxa weeye bullish hadii ay noqon halfing waxa loo yaqaan ma soo koobi karo waxaas chapter baa ka diyaariyay dhameystiran oo aad marka Twitter ka timaadid ama waxa way Facebook YouTube ama doodaha looga dooday cryptocurrency waxa la soo gaabsaday erayo la isla yaqaan marka erayadaas ayaga af Soomaaliyeedsan oo si qurux badan aan kugu soo koobay baa koorsan soo kala saaxiib ku baran doontaa waxyaalaha saaxiib aad ku baran doontaa waxa kamid ah waxa loo yaqaan market correction conceptada ugu weyn waxa way cryptocurrency waxa kamid ah saaxiib correction aliyada oo suuqa ku dhaca waxa way correction-ka sidee baan correction-ka uga faa'iideysan kartaa iyo sidee sidoo kale aad iskaga ilaalin kartaa qasaaraha waxa way correction u keeno marka chapter dhan baa uga hadlay market correction-ka iyo waxyaalaha la sameeyo saaxiib waxyaalaha ku baranto waxa kamid ah sida loo isticmaalo MetaMask wallet waladida waxa loo qabiyaa labo qaybna waxa waa central qaybna waxa waa decentralized wallets marka MetaMask qaabka uu isticmaal lahayd gaar ahaan saaxiib waladida decentralized ka sida waxa weeye bank sabab kale sida aad uga iibsan lahayd aad ugu xiran waxa weeye MetaMask-kaaga sida account looga sameeysan oo ku baran doontaa saaxiib waxyaalaha ku baran doonto waxa kamid ah sida aad cryptocurrency-gaaga safe uga dhigan lahayd dabcan waxaan isticmaalaa exchange-da aan isticmaalo waxa kamid ah Binance iyo crypto markii noqotay waxa weeye exchange waladidana waxa kuwa kana isticmaalna marka exchange-ga saad safe uga dhigan lahayd crypto-haaga account-ka qaabka u xifdisan lahayd ayadana waxaan ka diyaarinay casharo badan waxyaalaha saaxiib ku baranto waxa kamid sidee looga sameeyaa passive income suuqan cryptocurrency dabcan dad waxa jirta maal gashto dad waxa jira dabcan trade gareeyo laakiin waxa jira siyaalo kala duwan oo passive income looga sameeyo oo ay kamid tahay in affiliate noqotid oo ay kamid tahay waxa weeye in airdrops waxyaalaha dhow aad chapter dhan uga hadli doona casharka ku jiro sida looga faa'iideysto coin-ka intaan la soo listikin soo weyn qaabka meelaha hoose laga soo raaco ayadana saaxiib loo ku baran doontaa saaxiib waxyaalaha ku baranto waxa kamid ah source of information industry-ga meelaha laga helo hadii noqon waxa website-yo social media hadii noqon waxa podcast iyo YouTube sabta dhamma uga hadlaya dhammaan wasiidada ugu waaweyn qof kasta oo waxa way macna ku ama meel kale waxa way ka sheekayaba meel bulaftiisa waxa ka soo helaa resources-ka marka saaxiib chapter weyn baa uga hadlaya wasiidada ugu caansan waxa kamid ah coin market-ka kale iyo guud ahaan waxa way meel imaadaan ayagana waa ku mention gareynaya oo word baa kugu diyaariyay si linkiga si dhaqso ah ugu heshid halkaasna aad information ama news-ka cryptocurrency mar walba ay sicna kaga horeeyaan sidoo kale saaxiib ardayga wuxuu koorsan ku baranayaa 6 qaabood oo lacag looga sameeyo cryptocurrency ayadana
cashar weyn baa ka diyaariyay waa ku baran doontaa saaxiib mar haddii aad soo gashay suuqyadan waxa way financial marketka waxa qasaba inaad ku dhaxratid scams dad isku dayay inay lacagtaada dhacaan ama ku scam galayaan ama lakiya kugu soo diraan ama ballanqaadiyaha ku sameeyaan oo ha ku weydiistaan waxa way private key-gaaga meesha ay ku weydiinayaan public key-gaaga marka ayadana cashar baan ka diyaariyay dadka scammerska la iska ilaaliyo saaxiib suuqan waxa ku baran doontaa waxa loo yaqaan volatility oo ah mid kamid ah waxyaalaha ugu jecelahay cryptocurrency mar haddii aad saaxiib soo dhaxayso suuqyada waxa way la maal gashto sida stocka bondska forexiska iyo kanba saaxiib cryptocurrency waxa qasab suuqa inuu marba sameeyo volatility cryptocurrency saaxiib waxa loo kasiri garayaa suuqyada ugu waaweyn oo volatile ka suuqa markasta hoos iyo kor aado dabcan suuqa haduu more volatile yahayna waxa parallel ah inuu suuqa risk yahay mar haduu riskina waxa laga helayaa high return potential waa sababta dadka u maal gashtaan cryptocurrency si dhaqso lacag uga sameeyaan marka stock la fiiriyo kala waa less volatile cryptocurrency suuqa bondska deemaha loo yaqaan almost waxa way volatile looma kasini garayo saaxiib waxyaalaha sidoo kale ku baran waxa kamid ah sida secure looga dhigo account-kaaga gaar ahaan waxa way exchange-gaaga sida waxa way aad password kaliya ma ahan qaybta laga dhigo waxa lagu hirtaa wax la two factor authentication ama 2FA waxa loo yaqaan iyo sidoo kale face ID-ga saddex system baa la maraa password kaliya ma ahan ayadana cashar baan ka diyaarinay sida account-kaaga exchange-ga aad u xifdin lahayd hatta haduu password-ka ilowd qaabka recovery aad ugu sameyn lahayd oo loo soo cesho saaxiib waxa ku baran doontaan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka cryptocurrency si ay isla ognaayeen saaxiib cryptocurrency global adduunka uma aqbalsana oo dabcan waa technology cusub loo yaqaan waxa way blockchain ku shaqeeyaa inkastoo wadamada adduunka ugu waaweyn reer galbeedka hogaaminaya iyo hadda aqbalsan yihiin wax looga iibsan karo laakiin wali waxa jira wadamooyin aan wali aqbalin marka dabcan faa'iidooyin wala sidoo kale khasaaraha haddan cryptocurrency leedahay cashar baan ka diyaarin saaxiib waxa ku baran doontaa sida account-kaaga deposit lacag loo dhigto cryptocurrency si toos ah adoo bangi isticmaal ama sarifle isticmaal payment system kale isticmaal si toos ah baad ugu baran doontaa dabcan hadda waxa idin sheegay ma ahan chapterada waxa way koorsada aad ku baran doontid laakiin waa inta ugu muhiimsan aan leeyahay la wadaag laakiin intaasi koorsada way ka balaaran tahay saaxiib marka hadii aragtay inaan soo dalbado dabcan website-ka galabashir.com waa ka soo dalban kartaan ama numberka u dambeeyay 75 hadii aragtay marka dhamaanba casharada koorsada aad ku baran doontid hoos baad ka fiirin kartaa website-ka hoostiisa dhamaanba chapterska aan cover gareynayno iyo mid kasta wuxuu ku saabsan yahay insha Allah saaxiib waxaan rajeynayaa in cashar koowaad ee gudaha aan isku aragno aad ma santi